أريك أقول ضمبيه oo qofka u sahlahay inuu waxa weeyaan diinka ku sugnaado u fududaynaaya waxa kamid ah qofka horta inuu fakaro adiga maalma joogaysa maxaa ka dambeeyo maxaa ilaahay agtiisa yaala ilaahay agtiisa waxa yaala cadaab iyo janno cadaabka iyo jannadaasna waxa ka horeeya dhimasho aad dhimanaysid oo muxaqqiq ah ilaahay wuxuu yiri faman zuhziha 'an an-nari wa udkhila al-janna faqad faz qofkii naarta laga dheereeyo jannada waxa la geliyo waa liibaan markaad ku fakartid marka u fiirso jannada ilaahay uu diyaariyay adoomadiisa muttaqiinta iyo jannadaasi waxa dhex yaala inay tahay meel aan laga dhimanahayn oo aan laga daqoobahayn oo aan mataqaana cabsi oolin oo wax allaaliya aan baahi la arkahayn oo waxa weeye wax alla waxa qofku ku soo dhaca uu helahay oo in allaaliya intuu rabo iska helahay oo sidoo rabo u raaxaysanahayo jannadaas ilaahay agtiisa inay taala markaa ku fakartid nabigu inuu yiri ilaahay wuxuu yiri a'datu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar adoomadayda saalixiinta waxaan u diyaariyay waxaan qalbiga basharka ku soo dhicin oo dhagi aynan maqal oo ilaa aysan arag ayaa u diyaari marka ku fakartid midaas noloshaan oo dhanba macna ku yeelan mayso waxa ku fududaanaya masaa'ibta kugu dhacaysa iyo dhibaatooyinka kugu dhacaya oo dhan way ku fududaanayaan qalbigaaguna waa tagaya adiga jasadkaaga baa jooga maahane qalbigaagu waa tagaya wuxuu jiraa aakhira iyo jannu jiraa hal law yaa markuu oofsado ku geeya adduunyada hadaa dhibkeeda ka bixi lahayd sadaqadaada badso salaadaada badso soonkaaga badso mar un ha ku dhaafto adduunyadan qofkaasi marka waxa u fududaanaya wax alla waxa duruufaha ah iyo dhibaatooyinka ku imaanayo dhan waxa sahlaya markuu ilaahay agtiisa waxa yaala oo janno iyo nimco iyo barwaaqo ah u xasuusto waxa weeyaan masaa'ibtaan oo dhan waa u fududaanaysa waxaana markaad uu ku didaalayaa inuu taacada ilaahay badsado khayrkana uu ku didaalo diinkana uu ku sugnaado taas u fududaanaysa ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام wuxuu soo maray saxaabadiisa qaar kamid oo la cadaabayo dhibaatada ugu adag lagu hayo xoog iyo awood uga dul qaadana ma hayo markaas wuxuu ku oranayay sabran ala yaasir fa inna maw'idakum aljanna ra'alu yaasir oo iska sabra maw'idkiina iyo ballankiinu waa janno ayada ay dambaysa marka waxa alla waxa dib loo geysanayo diinka lagu dhibahayo maadaama nabigu uu yiri jannaad ku dambaynaysaane sabra way u fuudaanaysaa marka taasi way u fuudaanaysaa walidaalika nabigu ninbu wuxuu u sheegay hadaa dhimati jannada helaysa timirti yarta ahayd oo cunahay jihaadka markuu ku jiray buu dhamaysan waay waa nolol dheer buu ma sugi kara midaan waa nolol dheer marba hadii la yiri hadaad dhimati janna leedahay ma sugi karaba inaan timirtaan dhamaysto qofku markiiba wuxuu rabayaa inuu khayrkaas gaaro khayrka inuu gaaro rabaya marka asbaabahaasi waxa weeyaan asbaabo qofku inuu diinka ku sugnaado waxa weeyaan u sahlayo u fudaynayo waa inuu qofku in badan ilaahay u bariyaa waxaan arkaynaa nin fiicna markii hore amarkiisa arimihiisa iyo bilowgiisa iyo quraanka iyo cilmiga iyo khayrka waxa yar ka bacdi waa inxiraaf markaas wuxuu noqonayaa min afsaqi الناس dadka midka ugu faasiqnimo badan oo ugu faajirnimo badan buu noqonayaa ninba wuxuu ugu yiri gabar gaalowday oo kirishtan noqotay oo aaminsan hadda ciise waa ilaah oo Soomaaliya wixii markii hore ay noo timid kitaabka riyaad saalixiin ka la yiraahdo ayay meesheena ka akhrin jirtay gabar muxajabad ay ahayd riyaad saalixiin bay akhrin jirtay gabdhaha cilmiga u akhrin jirtay markii dambana waxay gaartay inay tiraahdo ciise ilaah ah ilaahi dhul iyo cir abuur ilaah ma soo ma jeed qof baa arkaysa sanadkii hore u fiicnaa sanadkaanu fasaad qofku marka inuu toosnaashaha iyo istiqaamada iyo khayrka ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunyadana ku sugo markuu adduunyada ka baxayana oo istiqaamo iyo toosnaasho uu kaga tago oo khaatimo wanaagsan uu ku dhinto waxa weeyaan shayga ugu qaalisan oo la dalba weey waa inaad ducada iyo baryaha badinaa sabarka diinka aan ku sabrayna la nimaadna macaasida iyo xumaanta aan ka sabarnaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu noo diyaariyo meel fiican hadaynu iimaan iyo amal saalix aan la nimaadno waa inaan ogaana oo xasuusnaana